السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan rajeynayaa inaad fiican tihiin. waa taxanaheennii aynu kaga hadlaynay dhulka Soomaali galbeed ama ogaadeynaya kolba saad u taqaano. waxaana ka soo hadalay qaybtii u dambeysay oo ahayd tii shanaad. haddana waxaynu galaynaa qaybtii lixaad. waxaynu guda galaynaa qaybtan lixaad kaga hadli doonaa taariikhda deegaanka, khaasatan ismaamulka iyo madaxdii soo martay laga soo bilaabo 1993 ilaa iyo hadda aynu joogno. waxaa soo martay deegaanka madax kala duwan oo ilaa iyo 11 madaxweyne ah. qaarna markay tirinayaan waxay yiraahdaan waa 13. Mustafa markaan ka reebno 11ka madaxweyne kale waxay joogeen muddo 16 sano ah. waa 11 madaxweyne oo 16 sano jooga. halka waxaad ka garanaysaa inay tahay xiro gumaysi oo nin xilkiisa si fiican u dhameystay uusan jirin. laakiin waynu faahfaahin doonaa asbaabta iyo mid walba inta uu xilka uu joogay. June 1993 waxaa la doortay madaxweynihii ugu horeeyay ee deegaanka Soomaalidu yeesho. ilaahay ha u naxariistee Cabdullaahi Maxamed Sacdi. waxaa xilka laga qaaday November 1993. wuxuu xilka hayay muddo 9 bilood 8 bilood noocaas. si qasab ah ayaan xilka looga qaaday. dib baan hadda aladno ka faahfaahin doonaa. November 1993 waxaa loo magacaabay xilkii Xasan Jire Qalinleh. Allah u naxariisto. waxaana xilkii laga xayuubiyay si qasab ah Abriil 1994. sagana hal sano xilka hayay. Abriil 1994 waxaa xilkii loo magacaabay Ugaas Cabdiraxmaan. waxaana xilka laga qaaday Febraayo 1995. asaguna wuxuu xilka hayay hal sano. Febraayo 1995 waxaa xilka loo dhiibay haweeneykii la odhan jiray Axmed Makaahil. waxaana xilka laga qaaday October 1995. asaguna bilooyin ayuu xilka hayay hataa sanad ma dhannayn. October 1995 waxaa xilka loo dhiibay Ciid Daahir. waxaa haddana asaga xilka laga qaaday isla markiiba October 1997. asagaaba roonaayo 2 sano xilka hayay. October 1997 waxaa xilka loo dhiibay Khadar Macallin. waxaana xilka laga qaaday October 2000. asaguna 3 sano ayuu xilka hayay. October 2000 waxaa xilkii loo dhiibay ninkii la odhan jiray Cabdirashiid Duulane. waxaana xilka laga qaaday 2003. asaguna 3 sano ayuu xilka hayay. January 2003 waxaa xilka loo dhiibay ninkii la odhan jiray Cabdullaahi Jibriil. waxaana xilka laga qaaday December 2005. wuxuu xilka hayay asaguna 2 sano. December
2005 waxaa xilka loo dhiibay Cabdullaahi Xasan Cabdullaahi Lugbuur waxaana xilka laga qaaday Oktoobar 2008 asagoo xilka wuxuu hayay muddo 3 sano ah. Oktoobar 2008 waxaa xilka loo dhiibay ninkii la odhan jiray Daawud Maxamed Cali oo odhan jireen Daawud Axmar waxaa xilka laga qaaday Juulaay 2010 Juulaay 2010 waxaa xilka loo dhiibay ninkii la odhan jiray Cabdi Ilay Cabdi Ilayna waxaa xilka laga qaaday 2018 dhammaantood raggaa aynu ka soo sheekaynay mid cararay oo dhuuntay mooyeen ama meel kala galay mooyeen waxay wada muteen jeel ay ku dambeeyeen. Halkaa waxaa kaaga muuqata inay ahaayeen dhammaantood wax la keensaday meesha oo aynan ahayn kuwo shacabku uu doortay. dadna kuwii keensaday ma markay ka waayaan sida ay doonayeen jeelka u taxaabay. markii laga tago Cabdi Ilay iyo Mustafa oo hadda joogoona tirada aynaan ku darin inta kale sariig bay lahaayeen. waxaadna ku garanaysaa wada shaqaynta ka dhaxaysa gumaysiga iyo iyagu inay yarayd sidaas baan xilka durba looga xayoobinayo. taga qaar baba 4 bilood oo kaliya joogay sida hadda Axmed Makaahil oo kale 3 bilood mise 4 bilood noocaas la sheegay. kuwa kalena kii u badnaaba 3 sano joogay. maxaa keenay wixii laga rabay iyo sidii la doonayay u shaqayn waayeen. dadka inay gumaadaan baabi'iyaan u adeegan gumaysiga talaabo kastoo loo diray ay qaadaan ayaa loo magacaabay tiibay filin waayeen. dadana xilka laga xayoobinayay kadibna jeel baa lagu hubsanayay. haladayna mid dul istaagno madaxweynihii ugu horeeyay in la odhan jiray Cabdullaahi Maxamed Sacdi Allah u naxariistee ay shacabkiisu sida xorta u soo doorteen asagoo xilkiisii gudanaya ayaa jeelka loo taxaabay. asaga iyo ku-xigeenkiisii afhayeenkii baarlamaanka ayaa jeelka lagu xidhay. waxayna xidhnaayeen muddo 1 sano ah iyagoo wax maxkamada aan la horkeenin ayaa la iska sii daayay. kadibna madaxweynuhu Allah u naxariistee xagga ay reer Yurub dibadaha yuu cararay xaggaas buu ku geeriyooday. waxaa ku xigay madaxweyne Xasan Jire Qalinle wuxuu xilka hayay muddo 7 bilood ah asagana waa la xidhay. waxaa lagu eedeeyay inay baarlamaanku u codeeyeen maadaama madaxweynihii kilalku uu xidhan yahay xilka qaasna lagu sameeyay ayay baarlamaanku intay fadhiisteen soo magacaabeen. dowladda Itoobiya way ogeysiiyeen. waxay u aragtay Itoobiya intay arrintaasi gacan dhaaf iyo in awood maartay wali shaqaynaysa ay tahay waa xidhay kadibna way iska sii deysay oo danteeda ka gaadhay. waxaa ku xigay madaxweyne ugaas Cabdiraxmaan Maxamed Qani waxaa afgambiyay xubno ka tirsanaa maamulkiisa laakiin ay dabada ka riixayeen ciidamada TPLF. ugaaska waxaa lagu xidhay magaalada Goday bishii Juulaay 2008 waxaana lala xidhay dad Soomaaliya oo 100 ruux kor u dhaafay. madaxweynaha wax kiisa iyo wax dambi oo lagu soo oogay ma jirin ee gardarro baa loo qabsaday ama loo xidhay kadibna waa la iska sii daayay. waxaa ku xigay madaxweyne Axmed Makaahil waxa uu talada madaxnimada qabtay Febraayo 1994 isagoo xilka hayay Oktoobar
ilaa 1995 dadka qaarkii waxay dhahaan 4 bilood buu xilka hayay, qaarna waxay yidhaahdaan 1 sano. kadibna xabsigaa loo taxaabay. madaxweynaha waxaa lagu xidhay jeel aad u liitay oo uu ku xanuunsado ku rafaaday. dadka ka dambeeyay madaxdii ka dambeysay ee kilalka wuxuu ka codsaday in jeelasha si wanaagsan loo dhiso oo xabsiyada la wanaajiyo, maadaama ay soo wada geli doonaan oo ay sunnaba noqotay ninkii xilka qabta kilalka inuu jeelka soo galo. mar hadduu marka yahay gurigaagood kulley soo geli doonto, dee hagaajiyo albeerkooyin iyo wax u sameeyo, biyo u sameeyo oo geeda ku tallaala, ilaa waad soo geli doontaane. qaab noocaas oo ugu taliyay. inta aan ku joojino qaybta inoo hadhayna qaybta 6aad ama qaybta 7aad aynu soo bandhigi doonno ayaynu soo qaadan doonaa hadduu Ilaahay yidhaahdo.